aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay saaxiibkay cabdilqaadir nadaara. daawadayaal maanta waxaanu joognaa magaalada Birmingham oo idinka imanaya barnaamijkan suuqa casriga. waxaanu imika dhex taaganay haddaba harqaanlaha amba dawaarlaha magaciisa la yidhaahdo waa Berry Star oo ku yaala magaalada Birmingham, gaar ahaana Salama Business Unitka 9aad. waxaa markaasi iska leh waa Berry Star Axmed علي أحمد oo isagu ah mulkiilaha dawaarlahan oo aan jecelahay maanta bal inaan wareysi la yeelano iyo habka suuqa casriga uu soo biiray. Axmed ka soo dhawow barnaamijka suuqa casriga ah. waan ku soo dhawahay, waa mahadsan tahay. waxaan jecelahay Axmed inaan ku weydiiyo runtii horta waa loo baahnaa in aad harqaanle aad ka samaysan magaalada Birmingham amba dawaarle qof walba soo yaqaano. goorma ayaad ka furteen magaalada Birmingham harqaanlahan? waxaanu ka furnay sanadkii 2009 dhammaadkiisa. ma markii kugu horeysayba ee aad furto amba aad samayso harqaanlahan, mise hore ayaad uga soo shaqayn jirto nin aqoon u leh shaqadan aad qabanayso ayaa tahay? markii ugu horreysay horta ma ahan, shaqadan wax badan ayaan kusoo dhex jiray. waxaan shaqadan soo waday ilaa iyo hadda xilli laga joogo dhowr iyo 10 sano ilaa iyo 16 ilaa 15 sano. waa tahay maasha Allah. aqoon fiican oo u leeyahay intaasoo 16 sano shaqo kale kama shaqeynin. halkeed ka shaqayn jirtay marka xageed? markii ugu horreysay horta waxaan ku bilaabay magaalada Muqdisho oo aan deganaa kuna dhashay. xaafadee? Wardhigley. waa tahay. waa dadka lagu yaqaan si fiican lagu yaqaan. marka Wardhigley aan ma taqaanaa meeshii ugu horreysay aan ku asaasnay ahayd. ka bacdina waxaan u soo wareegay magaalada Dubai oo aan ilaa 10 sano ku noolaa oo aan ka shaqeynayba Dubai. shaqadayda ahayd harqaanka sida dresseska dumarka oo mataqaana oo aan aad iyo aad specialist aan ugu ahay. marka Dubai waan ka soo shaqeeyay, halkana markaan imaaday shaqadayda baan sii watay. Dubai hadda taqaano ma waa laga garay waxa la oranayaa harqaanle Axmed. si fiican Axmed Qaliin ali yaqaan. Axmed Qaliin waa tahay. Axmed waxaan jeclay inaan ku weydiiyo maxaad kaga duwan tihiin harqaanlahan aad ka samaysan harqaanka aad ka samaysan amba dawaarkani dawaarleyaasha kale ee dalka amba halkan maxaa wax cusub oo korsan? ficlan waxaan kaga duwanahay horta qabiir u ah waan ahay dharka tulistiisa ficlan. wax badanna waan ku soo jiray oo shaqadan wax badan aan soo waday. marka waxaan kaga duwanahay yani waxaan sameynaa gaar ahaan aniga aan aad iyo aad qabiir ugu ahay dharka aroosyada loo tolo iyo malxiisayaasha iyo maxaa la dhahaa cabaayadaha oo hadda aad aragtaan meesha waxa yaallo oo cabaayado iyo dresses inay u badan yihiin. weli xataa hadda waxaan u sameynaa dadka in cabaayadihii waagii hore waxaa la sameyn jiray Dubai ay ka dalban jireen ama Dubai loogu keeni jiray. dharkiina waan u keenay oo waa kuwaasaan xagga ayagoo ya salaam wada diyaarsan oo roleska ayagoo role ah dharkiina waan usoo diyaarinay. qofka wuu imaanayaa dharkii meesha yaalla wuu ka goosanayaa cabirka inta cabir ayuu rabay. cabaayad hadday noqon lahayd, haddii dresses noqon lahayd oo kale. waxaan kaloo u sameynay maxaa la dhahaa qiimihiina xataa Dubai ay marka hore kaga soo qaadan jireen ilaan waxay toli jiray Dubai jooga anaga leenayn mogtahay maadaama intaan Axmed waxa kale jeclaan ku weydiiyo dharka aad toshaan imika aynu daawanayno engineer Cali Sow ku qabanayo meel walba arkayno noocee ayay ugu badan yihiin oo dadku ay customersku ku keenaan waa noocee? waxa ugu badan dharka aroosyada iyo cabaayada. waa for example habeenka aroosyadu jiraan oo kale shaqadu aad bay ku badan tahay. duruuc badan baa la idin keenaya. si fiican aad iyo aad. miyay shaqaale badan aad u haysaa habeenka ka baxa? ha waa badan ma sha Allah. ilaa iyo waxaa jooga walaalkay meeshan ila shaqeeya inaan kale xusin la dhaho hadda shaqada soo gali raba. si fiican hadda waxaad ka wartaa bal qiimaha aad ugu toshaan dadka bal ka warnaysa. qiimaha badana dadka aad iyo aad ayaan u raali gelinaa oo qiimo aad ayagu ay ku qanacsan yihiin ayaan cabaayadaha ku siinaa. marka ayagoo qofkii qanacsan oo qiimihiina ku qanacsan yahay farsamadiina ku qanacsan yahay ayaan meesha markastaan isku daynaa inaan qofkii meesha waa midda keliya aan markasta diiradda aan saarno in qofka customerka oo markasta wixiisa aan laga daahinin. xataa waxaa jirto dad badan oo customerkeena oo degan London, degan maxaa la yiraahdaa Bristol, Manchester, Sheffield, dad badan oo degan kaga yimaada halkan noogu yimaada ama xataa waxay soo dirsadaan simbalkii. waxaan sameynaa marka delivery oo postage aan ugu sameynaa. weli xataa ma judge garayna dadka in deliveryga markii loo sameynayo xataa qofka uu ka baxsan yahay magaalada qofka la dhan joogay ee ka soo dalbada. waxaa kamid ah oo kale waxaan kaloo qabanaa
dareysyada oo dumarka kuwa westernka ay qaataan ayagoo qiimo macquulaha ugu sameyno sida horteeda kaaga muuqato buuggan oo aan ku sameyno maxaa la yidhahdaa dareysyada sidaas aan u talno ayagoo qiimaha aan ku sameynana qiimo aad u macquul u yahay marka hawsheena kale waxaa kaloo ka mid ah dharka ragga ayagana waa aad iyo aad saraawiisha waana gaabinaa xataa tulina waanu talnaa shaararka sidoo kale suudadka ayagana dabcan qofka markuu ka weynaado suudka waan u yaraynaa waxaa hawlaheena taas oo kale qamiisyada oo kale ayagana waan tolnaa haddii la rabana waa loo gaabiyaa jeenishada waxa kulli hawlaheena taasna waa ka mid tahay waxaan kaloo ka mid ah hawlaheena daahyada ayagana aan tolno ama marna qaarkooda aan xirno xilliyada qaar daahyada ayagana ay tahay hawsheena ay ka mid tahay guryaha kusoo xirnaha anagoo haysana yani qalabkii ugu dambeeya oo daahyada lagu xiro dadka aad u jecel yihiin aad iyo aad holan laga keeno waa wax loogu talagalay in daahyada lagu xiro marka taasna hawshan waan qabanaa marka styleka daahyada aan u tolno asigana buugtiisana waan haysanaa buuggiisa waxaa ka mid a kan oo kale daahyada iyo qiimahoodana waa ku wada qoran yihiin websitekeedana wuu ku jiraa qofkii raba daahir servicekeena ama adeegeena kale waxaa ka mid ah inaan sameyno calamadii nooc kastay noqdaan calamadii iyo adeegana waxaa kaloo ka mid waxaan leenahay xataa qolka cabirka laysku cabirin qofka intuus markii kale waxa anaga aan haysano makiinadaha aan haysano waa makiinada casri ah oo loogu talagalay dharka dadka lacagleyda ay qaataan in loogu talo dharka ugu dambeyntii waxaan jeclaan ku weydiiyo maxaad dadweynaha Soomaaliyeed ee ku daawanaya caawa maxaad u jeedin lahayd oo u sheegi lahayd oo oran lahayd dukaankaagan in waa Bristar oo aad ugu yeedhin lahayd daahirow in adeega anaga aan qabano qiimaha aan ugu sameynana qiimo macquul ah anagoo ku soo dhaweynana gacmo furan iyo qalbi furan oo adeega ayaga ay rabaan dadka bulshada Soomaalida ee ku nool magaalada Birmingham iyo nawaaxigeeda in adeega aan u sameynayno uu yahay adeeg hufan oo iyo farsamo wanaagsan iyo qiimo aad u raali aad iyo aad ayaad u maadsantahay dawadayaal waxa aanu maanta dhex joognay dawaarlaha magaciisa la yiraahdo waa Bristar oo ku yaala magaalada Birmingham gaar ahaan xarunta Salaama Business Unit ka sagaalaad dawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeyn doonaa mar kale ayaa waxaan u gudbin doonaa saaxiibkay Cabdulqaadir Nadaara oo isagu markaas fadhiya studio magaalada London oo aan leeyahay Cabdulqaadir adle waay